maaragtay ficilo ama maaragtay waxyaabo muujinaya inuu heshiiska jira ayaa soo baxay oo maalin walba soo baxay waxaa ka mid ah haddii aniga lagu qabsaday oo aan isku afdhaafnay aniga iyo mudan cadaan aan isku afdhaafnay aniga oo maaragtay jooga tirdaba markii aan kulankii qabanay oo aan shacabka gabadh maaragtay na weydiisay caddi ilay maxaad maaragtay aad ugu dacwo weydeen idinka oo aan ilaa maxaad caddi ilay ugu dacwo weydeen in xabsiga laga soo saaro oo maaragtay hay'ada ay ka dhigtay oo ooyeysa ayaan u sharaxay waxaan oray caddi ilay dambiga ummadda uu ka galay wax la soo koobi kara maaha ummadanadan isaga heer kaa dhigay waa ninkii sidaas sameeyey waa ninkii sidaas sameeyey oo aad markii dambe ay shacabka aad ugu guuxeen oo maaragtay aad loogu shacbeeyey weliba aayadan daliishaday oo hadda dadka qaarkii ay yaqaanaan oo waxay bixiyeen walaa tarkanu dadka qaar baa ay bixiyo yidhahda walaa tarkanu markay arkaan yidhahda aayaddaasa soo jeedisay waxaan ku yidhi walaa tarkanu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar qofka daalimka ah looma iisho khudbadda markii aan jeediyey mudan cadaan baa dirdhaba ayaa igala soo hadlay adisaba oo yidhi maxaad iga beddaa ku geli maxaad caddi ilay wax uga sheegaysaa taas waxaad muujinaysaa marka inuu jiray heshiis noocaas inuu jiray baa muujinaysaa ka soo tag markii dembiyada ka galay shacabka maaragtay jeelwaadeen saa ku sameeyey intaasoo gabdhaha ku sameeyey waxa afin kara oo keli ah maxkamad iyo dadkii dembiyada laga galay uma afin kara halkaa markaan ka irin xataa markaan maraynay dhammaan aan maraynay kii shaariqaha ahaa ay dhono shaariqa lagu yiri wuxuu agaranahay uu qabsaday oo waliba muskil la laadiyay maxaa hadalka u tiri ma yani waxaan ku yiri adigu dambi baad ka gashay ku yiri shacabka anigu waxaan yiri baan ku yiri maartay dadkii dambiga galay adigu hadda dambi ka gashay shacabka waxa xaq lagu leeyahay baan ku yiri in maxkamadda lagu saaro dadkii dambiga ka gashayna aad weydiisato inta un baan yiri intaan waa saxbaa waan ku soo celinayaa baan ku yiri arrinta markaan iri kulankanagii markii kulankii golaha dhexe ay isugu nimid kulan hawleedaan isugu nimid maamulkii xogayihii iyo waa lagu qabsaday nin hab maxkamad ahaan ah ayaa lagu saaray maxaa adiga maaragtay bedel ku geliyay oo aan isugu khilaafay aan maaragtay isugu caroonay oo maaragtay xitaa misqara ay noqotay taa marka waxay muujinaysaa darafkanagana inaan maaragtay commitment galnay in nimankaasi aan la soo qaadin laga hadlin la cafiyo la waxay weliba ay ina taageeraan ma ahayn inaad kale weliba ina taageeraan watii aan idin sheegay ay ku qorayeen darbiyada ay ku qorayeen marka laga fikirayo in kala aaminsan yahay oo ka socda ayaa meesha jira annagoo aaminsan in mujrimiintaasi in talaabo laga qaado dadka xaqooda yani ayad bay ugu tahay aniga oo nin mas'uul ah inaan maaragtay aan iraahdo dadkii leynayay xubnaha naga ee baabiinayay ee ku istaagay meydkooda inaan iraahdo maaragtay waa iscafinay aad bay ugu tahay wax askayga aan soo marin kara maaha haba yaraatay marka waxyaabaha lagu kala duwan yahay ee muujinaya yani waxaan kusoo qaatay ficilada muujinaya waxyaabaha kalena waqtigooda waataan ku leeyahay yani waxyaaba fara badan oo waqtigooda